city arrin baan isleenahay su'aasha ahay gobolka city waxa weeyaan sagaalka gobolada ugu horumarsan gobolka city waxyaabo badan buu xitaa gobolada opportunity oo haysto kaga horeeyay baa jira xaqada marka ka wada deegaanka Soomaalida aan meel aan ka soo shaqeeyay jiro gudoomiyaha degmada Gudub aan jiro maraha qabidaha qorxay waan joogay xagga infrastructure ka marka la yiraahdo maadaama ay dirrabo u dhaway wax badan bay ka faa'iiday telefoonku haddu gaaray goboladii kale dad badan su'aashaas anigu waan yaabay marka dad badan ay weydiiyaan waxa dad badan aaminsan yihiin in maaragtaanay gobolka dhan la iska dhigay iyo arin aygaas madaxweynuhu maanta hadduu joogi lahaa wax kale uu oran lahay networkiga waa kan ninkani waa reer qorraxay waa qabidaha the networkiga hadda qabidaha la taagay shilina la goon ka jiray maanta banka aad maqasheen ee gobolka city oo dhan haddaad mobile meel la istaagto meel una ka dhacay ma jirto dada mintani hadii kala tuulo aan lahayn ma jirto tuulo magaalooyinka iska daawaweyn hadda gaari ashii afdami qabridaha raa wali la gelinin oo magaalo weyn ah hadana darag waa magaalo weyn laakiin light ma laha maanta soo ma goday Soomaad maqal goday baa la sii deynaya toddobaadkan shinilana ee anigu dawlad arday baan waqti kooraan kala gashay ma maxay horumarkaan hadaba sheegayna ma kala horeeyaan biyaha marka la yiraahdo saddexdii sano ugu dambeeyay biyaha la qodayna hadda sheegay waxa gobolka city kaliya laga qoday 300 oo ceel ka badan oo biig ah ceelasha dhaadheer ceelasha daadaneed aragteen oo dhan waa hadhagaala agteeda waa magaalaha Harawe la yiraahdo agteeda mashaariicda ugu waaweyn ee deegaanka Soomaalida ka socotay gobolka city way ka socotaa marina hadda daawateen mar aaniya madaxweynaha isla soconay meel biyo baxay la ka soo bilowday Soomaaliya 400 km square ayaa every 5 km ay baadiyo iyo xooluhu ka cabi karaan oo hadda la furaya bisha dhaxdeed projecti 3 sano socday oo 400 km square dhulintee oo garan kartaan waa dhul ka badan Dirqabiyo Djibouti inta u dhaxayso ayaa dambal laga soo bilaabo ilaa meeta galbeed loo kaco dirraba laga dhaqaaqo ilaa dawanla inta u dhaxayso square kaas every 5 km qofka safarka ee baadiyuuna inuu biyaha halkan weysada ka dhaansado hadduu xoolo watana ka waraabsado 5 km kala markuu sii socdo haddana inuu ka cabo ka waraabsado 5 kala markuu socdo kolka inta meelooda biyo istaagayaan ama biyo laga cabayo inta meelooda la istaagi karo biyo laga cabi karo waad qiyaasan kartaan gobollo aanan alif balowda baa jira waxyaabaha aan ka sheekeynay runta markaas ku sheegay kuwa aan ceelba wali aan ka odhanin baa jira kolka waxa weeyaan perception-ka oranaya gobolka sida way gobolku hadii uunan ugu horeynin saddexda gobol ee deegaanka Soomaalida ugu horeysa infrastructure-ka biyaha waxyaabaha oo dhan isku geey waxbarashada ayuu ku jiraa 8,000 oo qoys ayaan hadda doonaynaa inaan dejino 4,000 oo qoysna hadda galaagteeda meesha gabil la yiraahdo qof hadda maqasheen 4,000 oo qoysna aan dejino Harawe meesha la yiraahdo oo midkiiba laga qoday 150 ceelashin ay qaar socdaan qaar loo raadiyay projectigu dhammaystiran kolka guud ahaan deegaanka Soomaalida meelo badan oo ceelasha oo kale dibadejinta ay ka socoto way jiraan laakiin su'aasha specific maadaama yahay oo gobolka ahayd xaaladda gobolka waa sidaas wadooyinkay noqotay wadada dawanle ilaa iyo Dirqaba hadda waa kala bilaabay waa laami treenkii oo isaguna gabagaba ku dhow wada ka soo baxda mulli inaad waa ma ayso meesha la ka soo baxda abdam soo marta mulli soo marta abdam soo marta biki marta eeran marta Dirqaba halka ka gasha Shinila halka ka gasha Harawe mille hadagaala soo socota iyadana hadda bilaabmaysaa oo design ba dhammaystirmay xagga wadooyinkana qaabkaas weeyii kolka guudaan sawirka horumarkuna waa ka arinta dhulka cadeyntii xubniga galmudugna anigoo soo gaabinayo taariikh badan ay leedahay way aad u badan tahay intaas aan ku soo koobay shirka casuuliyiin aan maqasheen mooyaan waan tahay
وحي بروباغندا laga sameeyo taas waa arrin kale laakiin aragtidayda waxa weeyaan meel dad ay ku shirayaan danooga ay ka tashanayaan waa soo dhaweyn midna waa ka soo horjeeday in la siyaasadeeyo siyaasiyiin kale inay u adeegsatana waan ka ilaalinaynay laba arrimood ma loo tagnay maalinkan tagnay inaan amnigooga ilaalino heliyo waxay nooga baahan yihiin aan siino isla markaan tagnay gaadiid beeri weydiisteen baabuur baan ka rabnaa dad halkaan naga jooga baabuur noo soo qaadaan ka rabnaa bay yidhahdeen bartaanoo joogaan baabuur ugu yeeray waan siiyey desaad ogtihiina shirkoogi inuu saa ku gabagaboobay un baan ogahay intaa wixii kasii baxsan marka dee odayaasha iyo ugaaska halkaa laska dhigo waxaa suuragala ciyaaro kaloo siyaasadooda ka baxsan inay jiraan dee taa waa gaar annaga iyo qaar kaloo marataanay waa iska suuragal laakiin arrin la xidhiidha ugaaska iyo odayaasha iyo ma jirto oo marataanay annagu iyo shirki casbuli iyo wax mucaaradada iyo waxaas ma jirto iyadu odayaashii la xidhahay laawi waxa weeye taas ma ku daray su-aasha waxa leeyahay qortay oo dhan su'aal wada ka dhigtay ma maqlay bataa odayaasha waxa weeye odayaal la xidhay way jireen 21 qof ayaan xidhnay odayaasha amarka lagu xidhayna aniga lahaa marka idin sheego 500 oo odayntii la xidhay la 21 baan xidhnay waxyaabo badan oo isku dhaxlaaqmay baa jira waqti dhaxlaaya inaan wixii la dejiyo waa in waxay qasab noqotay marka xaalad faraha ka bixi gaadhay in dadka qaarkeed oo hormuud u ahaa oo maaragtaanay waxyaabaha qaarkood iyaga laftigoodu aragtidu un ay ka khaldanayd oonaan xumaan kala jirin xadhigga odayaalena casbuli shirki lama xidhin shaqo kuma laha waa wax shirki casbuli kadib dhacay weeyaan xadhiggani shir casbuli sabab loogu xidho qof maba jirto annagaaba tagnay oo maalin joognay oo ka imanay qof ganacsada oo hoonan tegin oo daraba joognay ma jiro yaa la xidhay ma jiro laakiin arrintan odayaasha su-aalaha la weydiinaya arrin baa jirtay booliska looga yeedhay dad dhalinyaraa laga daba diray rabshad baa ka dhacday xeradii booliska intii oo dhan waa la qabtay xabsiga dhexaa la dhigay xukun baa ku dhacay 4 sano waad maqasheen kadib markay 40 cisho xidhnaayeen saamaxaad buu u fidiyey madaxweynaha intaan ka wada hadalay xabsiga anaa ka soo qaaday gurigaygaan keenay jigjiga dharkaan ka bedelay timahaan u karnay bas baan soo furaynay waan casuumadaynay oo casuumad baan u sameeyey kadib nin kastaba gurigiisii magaalada dirraba dhalinyaradii iyo odayaashii nin kastaba gurigiisa gaadhiga hordhiga lahaa baan saarnay haddaad u bahatiin la hadlaya guhaadii odayaasha inaad garanaysaan soo ma cali muusi iyo aad baan aanu isku wada garanaynay si fiican baan qabay laakiin xadhigu arrin xasaasi oo jirtay oo xidhmeen qaladkan iyaga xaqiiqada marka la sheego annaguna badbaadu waa naga xadhigayo haddii dowladda federaalka ay qaban lahayd xaalad faray ka bixin xukunka ku dhacayna lama saamici karin kolka annagu inaan qabanno kadibna beri markay saxmaan aan saamici karno adu waa wey mar raba inaan ka sheekeeyo waa wey iyagaan ku badbaadinay inaan samayna annagu sayna u qaadataan saamaxaadaana may helin haddii jeelka dhaxala dhigo kolka guud ahaan taas sidaas bay ahayd arrimo badan oo jiro oo laydiin sheegay ma jiraan wax badan oo ways haystaan la niidi ma jirto si guud baa lagu taaban wadankii iska nabad buu ahaa odayaashuna waa iska fiican yihiin aad baa mahadsantahay